kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan intana daawanaysa idlahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii nala fiidso dabcan barnaamijka nala fiidso sida caadada waxa aad wataan goorahan oo kale si toosa studioga magaalada London ee University TV ay ku leedahay waxa barnaamijka idin daadahaya anigoo Cabdirasaaq Socoto iyo Aamina Muuse Wehli maadsad Cabdirasaaq daawadayaal waa habeen kale oo hor leh oo aan waxyaabo kale oo xiiso leh oo aan meel kale ka imaan laakiin idinka uu idinka yimid aan dib idinkugu soo celinayno waxaan idin haynaa sheekooyinkii maadi qosolkii gabayadii oo waliba markaan jacbur u badan iyo waliba heesihii iyo madadaaladii kale oo barnaamijka ugu talagalnay dabcan Aamina sida idin sheegtay waa ifra badan yihiin waxyaabaha aan kugu talagalnay waa waxyaabo idinku soo dirteen sida caadada ahayd xagga emailka aad noogu soo hagaajiseen barnaamijkan waa barnaamij aad ka qayb qaadan karto waxyaabaha adigu aad aliftay ee ka yimid fikirkaaga qoraal ha ahaadaan filmna ha ahaadaan oo noo soo diri karto waxaan halkan marka ugu horeeyo soo qaadi doonaa dabcan Aamina waxaan maleynaa inay noqonayso sheeko xiiso laha ma jaajil laha waxaan soo qaadanaynaa daawadayaal sida Cabdirasaaq ba u sheegay sheeko xiiso leh sheekadan fanaaniin oo Soomaaliyeed ayaa jilaya oo ka mid yihiin Boon Xirsi fanaankeenii caan baxay ee majaajilistaha ahaa ee waliba dhinaca qosolka kaliya u go'doomay iyo Cabdi Haybe oo isagu ah fanaan xirfado badan oo majaajilada iyo heesaha iyo waliba hal abuurka intaba ku xeel dheer nala daawada iyo waliba fanaaniin kale وقعدان استاغي كبيدا دايسا وقعدان استاغي كبيدا دايسا شغم بيجي ايي كبوتي ما ايدان اوقوا ما كليغان كارجبشا ما حبلغان ودنعا إلى تاري دادو إلى تاري دادو إلى تاري داديوهو إلى تاري برتان استاغي كبحسانيسا برتان استاغي كبحسانيسا شغم بيجي ايي كبودي برتان استاغي كبحسانيسا برتان استاغي كبحسانيسا شغم بيجي ايي كبودي ما ايدان اوقوا ما كليغان كالا جبشا ما حبلغان ودنعا إلى تالي دادو إلى تالي داديوهو إلى تالي دادو إلى تالي ما إيادان أوقوا ما كليغان marka in isagana waan la hadalay oo wuxuu yiri inanta waxaan doonayaa inaan guursado dhabankana waanu bixinaynaa dhabanka 2 milyan baan doonaynaa ya 2 milyan 2 milyan ma dawlad bal caawinaysa ma yaanaya afteedaan doonayaa 2 milyan yaa anaga lagu guursadaa 2 milyan hadii lagu dhiibo sidee u guursanaysaa marka abba mishtari baad noqonaysaa xayatad bay dhibaysaa horta waxa la doonayaa inaad ureysato oo maaniyaad wax dhadhaso haay dhalmadii warkan waxaaba soo wataba 2 milyan marka la bixiyo yaa dabay la dhadhalide 2 milyan 2 milyan horta baxsha 2 milyan ma abaara la caawinaya ya abaara lama caawiyo arooska lagu sameeyaa arooska daanaga sameeysanayna oo dhiganay daanaga sameeysanaya 2 milyan ku sameeysanaya adigu mid baad leedahay maxaa leh waxaad leedahay inankii waan doonaya laakiin reerka iska leh aabba iska leh oo hooyaa iska leh oo dhabanka wax iska leh tol oo wax iska leh marka anaga de ku waayis anigana waayis sax weey adiga waan kula shaqeynaa kullee de anigu loo mar yaba iska qaataa odayada shii islaamiga dadka sheegaysan waxay qaataan 3 iyo dhulka 3 iyo dhulka 9 baabaanu ka dhignay de 10 ba ka dhiga hay waxaanu ku niri horta adiga waxaanu ka doonaynaa
haabaan ka doonay de aanu hayabaan ku idhaa laakiin de inta hadda 10 milyan keen wallahi saxba 10 milyan dad keen weydiiyay waa iska noqonaysa horta wallahi gabadh waa iska noqonaysa gabadh wallahi waa gabadh wariyaa wariyaa sunnayaal hayaay sabargeey هذا نوسي قردينا نجا دايو أنا كنا كل الباحي لهاي وحن الدولة هنا نسكو كير رجلاش كم تقنا يا بلك يود السنة هجا حنود السنة ودي أربعة هم دي واحد اللي وصل مني أنا تهدي وان لمي الله وصل لما يستري ما دميس أنا قوي كذا هذا كا نقصو بني وحنا نفايسة قلت مدك بعده يا روني شيك تمام هاي معي عرفتها سوي كديسي دي هاي سيدي سمعني waxay ku deysay inanti waa koodiya maaliga ana dhag isla hadal waxay taade inanti show naaga cilmi la baahay waxay shalaytan ka sheekeen oo laligu awliyo waxay tiri ma taqaan waxay tiri waxaan dhahaynay waxaan dhadhaminaa waa kala dhig labadaasi kala dhaabad weeyaan dhooheena garashadu isku dhoon haduu yahay ismaanu dhaafsanaaneen waxay adiga kula dhuuban baa aniga ila dhibin weeynu dhinka aan ka taagnahay iyo dhinacu ka dhinacaan ka joogiyo dhanka uu ka taagay isku dhugasho meehina waxa aniga ila dhuuban baa isaga wilo dhumay weey dabatana isla keen waxooga isdhaafan lagu jiray waxooga isdhaafan waan gartay markiiba dabatana shaarkii yar wixii la hadlay hay waxaan ninka nuuxa laga saaran ma taagno ma doona dambi marihil laga bilaabay makaana ogtay war wala dambi wad leedahay waaban xashka weyn iska guday ma wali hidba malikaaga arinta dhameeyay reerkii ma dhameystay waan soo dhameystay waan tagaa waad ka soconaysaa waad tagaysaa albaabka garaaci xasaa hadda arooskan waxaan doonayaa ka soo qayb galo soo guriga laga dhismay ma aanaysiin oo mimikay soo socota meeday waan ku noqonayaa oo soo haa reerkii baa la balamo milyan haya oo keena ku guuleystay haya wagir walwal horta iga bax waxaan isla dhulka ceeb uga عجيب شيء كقصر له مخليجان كقرع كلا جبشة لقد ضمان مايه وحوي ولي وحوي بان حرشيو كلا يهدي مسرح لقولا سهر رنبا بقص لي سابقتا هديات شيء كذا قصر كبدن له طبعا وحي هيد بلوجي برامج كيجا فريق ما قلنا qaybo kale oo hor leh xagga sheekooyinka iyo madadaalooyinka aan idin hayno iyo waliba gabayada iyo geegaarada dadku ay noo soo direen dabcan iyo heeso kale oo noo soo socda iyo waxyaabo kale oo qosol leh waa barnaamijkiina la fiidso oo si toos aad ka daawanaysaan Universal TV studio magaalada London afari kama qodna daawadayaal sida Cabdirasaaq ba sheegay markan halkan waxaan idinkugu hayaa daawadaha la yiraahdo Saciid Cabdi Xakiin Cawad waxa uu joogaa magaalada Garowe gobolka Nugaal ee Puntland waxa uu ku salaamaya dhamaan shaqaalaha Universal Saciid waanu ka qaadnay wuxuu yiri qaasatan Aamino Muuse iyo Cabdirasaaq socoto aad baan kaaga qaadnay waa mahadsan tahay aan ku noqday halkaas daawadaha magaciisa Saciid buu u qoran yahay marka inuu Saciid yahay shaqal dheerna uma qoray inuu Saciid yahay ma kala garanayno walaal hadaan qaladan naga raali ahaw kolba ama waa Saciid magacaaga ama waa Saciida wuxuu yiri gabaygan iga hooyo buu yiri bal dhageysta gabaygan Cabdirasaaq geela oo maqaaxi furtay oo muufa ku casheeyay ida qayilaya oo dhurwaa shaah u kariyaya haddaan yeer diyaarada wato doorasho u taagan jiir fatuurad wata oo kala firaynaya dabagaalla suuqa taagan oo xila dalaaqaya laba tuke oo dukaan darbigii turub ku dheelaya buu yiri wuxuu yiri laba dawaco reer dagay duhurkii ooday ama dawaca reer oodaysa dhiidhiyo dhagax qaatayo niman dhalooqaysan saalaanyo soo dhaamiso sinna xanuunaysa buu yiri diirdiir dukaan furto oo dayn ka bixinaya mulac 9 shilin sito saacad gadanaya daba saqas kitaab haysato buud ku kabaloobta wuxuu yiri laba dhurwaa oo midkii lawga la cadeeyay laba libaax oo midkii libinta jiidayo iyo laba shabeel oo midkii shaati laga jeexay waxa jacbura saasan ka rabaa waa mahadsan tahay daawadahaasi aad iyo aad buu imaadsan yahay hadduu na maqlayo iyo haddii cid garanaysa ay na maqlaysaba aad iyo aad baan kaaga mahad celinayna waxaan filayaa daawadayaasha kale walaalahaaga af Soomaaliga ku hadla oo dhan inay ka heli doonaan laba shabeel midkood shaarka laga jeexay
waaba jacburkii yaabka lahaa aad u qosol badan Haye. aniguna soo qabta aaminayo dhinaca kale sheekooyinka ay saaxiibadu noo soo direen oo jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan xagga emailka noogu soo diray waxaan halkan ku hayaa sheeko cajiib leh qofka inoo soo diray waxa uu ku bilaabay anoo ah daahir saleebaan xuseen oo jooga buu yiri dalkii hooyo ee hodanka ahaa cajiib siiba magaalada Boorame ayuu yiri waa tahay waxaan caawa hayaa buu yiri sheeko qosol leh haye sheekadaas waxay ku saabsan tahay buu yiri culumo ama quruush dadku sida u yaqaanaan oo tabliiqa ah haye qof bas buu yaqaanaa buu yiri maalin baa ayay waxa ay tageen meel miyi ah oo dadku ay isugu soo baxeen sida ay diinta wax uga sheegaan oo ugu faahfaahiyaan haye dadkii halkaas kusoo ku dhaqnaa ayaa geed hoostii wada yimid ay isugu yimaadeen sheekadii ayaa shiiqii ayaa khudbadii bilaabay markuu xoogaa waday khudbadii ayaa waxa uu arkay nimankii markaa meesha fadhiyey qiiraysan oo ooyaye markaas ayuu shiiqii yiri nin buu arkay qiiraysan oo dadkii la wacdinayo reer miyiga la wacdinayo kamid ah oo ooyaye haye shiiqii baa yiri diintu dhadhamiyey shiiqii baa yiri macna waa qiirooda waa jadbooda oo macaansada buu yiri markaasuu shiiqii khudbadda markuu dhameeyay u yeeray ninkii ooyahay oo ku yiri maxaad u qiiraysan tahay oo la ooyeysa ninkii waa ugu jawaabay ceesaan yar oo dhimatay oo aan lahaa gadhkeedii oo kale baad leedahay shiiq wuxuu islaa ninku wuxuu la ooyey astaghfirullah sheekh dhamaa maanta dhawacdaaye bawacdigiisaba dhagaysamayna garkiisuu fiirihay shika cajiib badan aada umaadsantahay yaabsho badana aada umaadsantahay sheekada qosolka badan waxay noo soo diray daahir saleebaan oo jooga Boorame daawadayaal haddaan idin xusuusiyo hal xiraalihii toddobaadkii hore ayaanu u galaynaa kadibna sheeko kalaanu qaadan doonaa halkaabaa barnaamijka kasii ambaqaadi doonaa waxa ahaa laba hal xiraale ayaan idin weydiinay si aan fursad idin siino ka badan tii markii hore aan idin siin jirnay oo ahayd inaan hal xiraale oo ahayd inaan hal xiraale idin weydiino deetana aad kasoo wada jawaabi jirteen marka hal xiraalihii wuxuu ahaa kan koowaad wuxuu ahaa gabaygan oo aanu idin niri sheega abwaankii tiriyey haddaan waayay kuman aan dhaliyo kuman ilma adeera asaan waayay kuman ila dhalatiyo kuman arsaafiila ma waan waayay mowlaha rabbiyo kuman malaa'iga gabaygaas ayaanu idin weydiinay inaad abwaanka tiriyey sheegtaan jawaabta saxda ah waxa weeyaan waxaa tiriya gabayga ah sayid maxamed cabdille xasan sayid maxamed cabdille xasan ayaa tiriyey ilaahay ha u naxariistee hal xiraalaha labaad wuxuu ahaa sheeg xawayaan nool oo lafihiisu ka sareeyaan hilibkiisa macnaha lafaha sareeya hilibka hooseeya waxaa noo soo qoray daawado kamid a daawadayaasha oo idinkeeda lamid ayaa noo soo qoray halxiraalahaas halxiraalo badan buu soo qoray laakiin midba mar baanu soo qaadan doonaa iyo intii kaloo halxiraalayaasha noo soo qortay jawaabta saxda ah ee halxiraalahaasna waxa weeye xawayaanka lafihiisu ka sareeyaan hilibkiisa waa diinka ama diidiinka qofba siduu u yaqaano waa diinka ama diidiinka jawaabta dadka kasoo jawaaba halxiraalaha haddii aan u galo aad iyo aad bay u fara badan yihiin marka qaarna waxay sameeyeen qaarkiina daawadayaal sidaad iska warqabtaan labadooda waa kasoo jawaabteen waad isku dayda inaad ka jawaabtaan qaarna mid baad kasoo jawaabteen marka kii laba kasoo jawaaba iyo kii mid kasoo jawaaba waxba maanan kala soocin kolba intii ugu horeysay ama 30 qof oo ugu horeysay ilaa inta kala kari mayne oo farahay ka bateene ayaan idin soo qaadnay Faisal Farxaan warsame Bristol UK buu joogaa labadaba waa kasoo jawaaba si sax ah inta saxda uga soo jawaabta baa sheegaynaa cali xirano jiri coow cali kaafi loo yaqaano jarmalka ayuu ka soo qoray isagu wuxuu saxay oo uu ka jawaabay tii ku saabsaneed xawayaanka cismaanka ah South Africa Belleville ayuu ka soo qoray wuxuu isaguna ka jawaabay tii ku saabsaneed xawayaanka Axmed Maxamed Xasan Denmark ayuu ka soo qoray wuxuu ka jawaabay xiraalihii abwaanka ku saabsanaa cali maxamed abanuur Manchester United Kingdom buu ka soo qoray tii xawayaanka buu ka soo jawaabay ayaan la cali wuxuu meeshuu kasoo qoran nooma sheegin laakiin hal xiraalihii abwaanku kasoo jawaabay Cabdirashiid Jalato hal xiraalihii diinku kasoo jawaabay
cabdiraxmaan maxamed oo london ku nool tii diinkuu kasoo jawaabay amaba xawayaanka cabdulaahi maxamed sweden ku nool waxa uu kasoo jawaabay tii xawayaanka cabdifataax maxamed xuseen sweden wuxuu kasoo jawaabay halxiraalihii abwaanka deeq oo norway kasoo qorana tii xawayaanku kasoo jawaabay laacib nin magaciisa kusoo koobay oo cadaado wuxuu yiri maamul goboleedka ximin iyo xeeb kasoo qoray wuxuu kasoo jawaabay tii abwaanka farxiye ismaaciil nuur cali gabadha la yiraahdo norway bay kasoo qortay tii xawayaanka kasoo jawaabtay wayna saxday maxamed jaamac finland buu kasoo qoray labadaba waa saxay daahir maxamed cali north london buu kasoo qoray tii xawayaanka ka jawaabay axmed faarax share caruus sweden gothenburg buu kasoo qoray tii abwaanku ka jawaabay cabdiqaadir axmed maxamed king cabdi waxa uu kasoo qoray tii abwaanka maxamed oo belgium kasoo qorana waxa uu kasoo jawaabay labadaba waa saxay bulaale qoofil nin la yiraahdo london jooga tii xawayaanku kasoo jawaabay cabdiqaadir siyaad maxamed kuluc nairobi buu joogaa labadaba waa saxay cabdulaahi xuseen yuusuf cabdulaahi yare nairobi buu joogaa labadana wuxuu kasoo jawaabay tii diinka cabdicasiis dhaashana sweden buu joogaa abwaankuu saxay qadar cabdi ukraine buu joogaa waxaana uu kasoo jawaabay tii xawayaanka cabdifataax maxamed cali weyt sweden stockholm buu joogaa labadaba wuu saxay sumayo maxamed finland bay joogtaa abwaankii kasoo jawaabday cabdikariin xaashi holland buu joogaa wuxuu kasoo jawaabay tii diinka hooda mahad jaamac waxa ay kasoo jawaabtay labadaba way kasoo jawaabtay mahadsanid cabdiweli yaasiin maxamed holland buu joogaa tii diinkuu kasoo jawaabay cabdifataax cabdulaahi yaasiin cabdifataax cabdulaahi yaasiin gaalkacyo puntland buu joogaa tii abwaanku kasoo jawaabay ugu dambeyntii qofka soddonaad cabdiqaadir maxamuud xasan nairobi buu joogaa tii diinkuu kasoo jawaabay waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa intiina soo jawaabtay iyo inta kale oo iyaduna soo jawaabtay oo sax usoo jawaabtay oo haddana aan halkan ka sheegi karaynin hase ahaatee waxaan isku dayi doonaa toddobaad walba dadka soo jawaaba inaan qayb kaga soo darno toddobaadkii hore aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii qaladay laakiin jawaabta isku dayday idinkuna waxaan idin leeyahay hambalyo kulligan hambalyo waa tahay dabcan aamin waxaad moodaa adduunka meel ka maqanba ma jirto inta jawaabaha soo dirtay meelo badan baa la kala joogaa aniguna waxaan ku laabanayaa markaa dhinacii sheekooyinka dad badan baa nagala soo xiriir halkan waxaan ku hayaa warqado aad u fara badan iyo sheekooyin xiise leh sheekada labaadan jeclaan soo qabto waxa weeyaan waxaa noo soo diray mukhtaar axmed xaaji aadan oo jooga dalka jarmalka mukhtaar waxa uu leeyahay sheekadan waxay igu dhacday anigoo jooga magaalada burco ee gobolka togdheer qisadan anigu dhacday buu leeyahay anigoo habeen suuqa maraya magaalada burco ayaa waxaa hor socda buu yidhi nin aada u soo qiilay oo marqaansan markaa wuxuu meel lagu gado sigaarka ka iibsaday 2 xabo oo sigaar ah ninkii marqaabsanaa baa iibsanaya markaa ayuu mid shiday kii kalena ayuu isyidhi dhegta gasho markaa ayuu kii uu shiday ayuu dhegta gastay aniguna waan gadaal socdaaye kii labaadna misana wuu shitay marka ayuu iska socdaayo iska socdaa wuxuu socdaba sigaarkii dabka ahaa ee dhegta u surnaa ayaa isaga soo gaaray oo tunka ka qabsaday ninkii markuu sigaarkii dabkiisa soo gaaray ayuu intuu igu soo jeestay bahal bud ah ila dhacay oo is yiri malaha nabarka ku dhacay kugu dhacay ninkaana kugu dhuftay waxa ku daba socda haye ninkii baa daqar madaxa iga jeexay isna dabkii baa ka ololayay ninkii dhakhtar baa la dhigay anigana dhakhtarkaa la egeeyey subaxii ayaan fahansiiyey oo inuu sigaarkii uu shitay dhegta gastay marka ayaa dhibaatadu qaadku leedahay ayay ka bitaay u yidhi sheekooyinkan dhibaatada qaadku le waa maqlaysaa daawo dhegna waa gubaa qaadka ninkii dheg sakareed la surana waa gubaa sheekadaas aad u maasantahay mukhtaar axmed xaaji aadan oo jooga dalka jarmalka ayaa noo soo diray markana warqadahaanu ka yeeran nasanaynaa weligiin daawadayaal qof jacayl dardara ma aragteen horta sida baabuur ana taree oo neef dardare oo kale dad dardare dhihi ma karna moogta ayaantaan la dardaraaye wax la dardara ma rabne oo neef si accidentia ama shila u dardaray ma arki jirteen qof saas oo kale jacayl u dardaray ma arki jirteen waxba yaanan ka hor dhicina bal inanka soo socda ee jacaylka ka sheeganaya aanu wada daawano
واتهاي waxbaa ka dhacay jacaylkuna ana dardarina rana ana kor laga dhulka ku hayno tartiib noo hadaafiyo ya hadee kala saasa la isku dardarsamaa sida aar la ganay baan gurxamaya sidiisii cajiib rafaadka ka muuqda iyo dhibaatada maya fan qofka fanaanka ahaa wuxuu kala yahay sidiisaba qofna waa heesa oo kaliya qofna waa heesa iyo jila labada marka fanaankeenan labada waa isku yahay heesa iyo jilaba waa isku yahay waayo wixii uu heesaya ka muuqata aad iyo aad fanaankaas oo aan kusoo gaabinayno magaciisa Raaxay oo dadku ay u yaqaanaan ayaa heestaasi noogu luqeynay sheeko kala balnooto wata aan eega bal xagga sheekooyinka markaan aad ayuu farbadinay sheekadana waxaynu ka helnay Saciid Cabdi Xakiin Cawad oo jooga Nugaal Garowe waa Puntland waa inankii noo soo qoray jacburka waa isla asna sheeko kale sidoo kale noo soo qoray waxa uu leeyahay sheekadani waxay ku saabsan tahay maalin baa oday dawarsanaya soo garaacay guri kadibna waxa uu weydiistay in ay wax lacag ku sadaqaystaan ma hayno ayay islaantii guriga ku tiri wax kale ma siin kartaan buu yiri may bay ku tiri wax raashin xitaa hadaad ugu sadaqaysan kartaan sidoo kale may bay ku tiri hadana intuu cambaar aamusay ayuu islaantii weydiiyey hadaa odaygii reerka ma joogaa ha ayay ku tiri walibana waxa uu si raaciyay waxay u sii raacisay islaantii baa sii raacinaysa maxaad ka rabtaa odayga dee waynu israaci lahayn oo waynu soo wada dawarsan lahayn waa idinkaa waxba ma haysaanba ma hayadii ka badis guri oo inuu dhaqan yahay u egna waa fadhidaa markaas wuxuu yiri daada ka baxbana ma dhaantaane odagii ma yiri soo tuugsanay soo wada dawarsanay waa dhaqdhaqantii aad iyo waasataay Saciid Cabdi Xakiin Cawad oo jooga Nugaal anigu hadde Cabdirasaaqow iyo daawadayaal waatan idin sheego caawa gabayada jacbur bay u badan yihiin jacburkan waxa arrimaha isdaba taagan ayaa la yiraahdo magac baa buu leeyahay waxa alifay abwaan qaliif Muuse Samatar oo ku magac dheer Sanyare aniga oo ah buu yiri daawadihii noo soo diray Sayid Cumar Cabdi Faarax oo ku nool England magaalada Derbina waa soo jiita jacburkan marka aaminaya socoto shacabka u gudbiya buu yiri waa mahadsan tahay Sayid Cumar wuxuu yiri gurbaan baan maqlayaa ciyaar baa taba taagan Allah wallahi isdagaalay nadaqar baa daba taagan turub aynu ciyaarno muran baa daba taagan deeqay waan ku salaamay xodxodasha daba taagan buu yiri deentayda maadi sidna naxdin baa daba taagan buu yiri saldhig baan ka dacweeyana shaki baa daba taagan damiin baa laygu deeyayna kashifaad baa daba taagan qaad baan cunayaana qabasha daba taagan inqilaab dawladeedna qaxooti baa daba taagan buu yiri been ma taas cid dad badan ay haysataa hindi baan galayaa buu yiri ibadbaadiyay baa daba taagan buu yiri markii hindiga inuu kii filimka ka wado inuu ka wado wadankii lama yaqaan laakiin waxa ma inuu filimka ka wado boolis tuug qabanayana basaas baa daba taagan buu yiri ilaa qofka la iskama soo qabto moogta marka hore wala soo raaraadshaa Soomaalida isdilaysana qabqabla daba taagan oo nacam taasoo warrinta ku sheega haddaan si daba raacana qabiil baa daba taagan الله أفكار عنا لو قبل هذان ضد الدمية كرسي بعد بتاعك بير هذان دير كقاعدنا جاهل لما دبتها بير
mid foox lagu qiijinna suufi baa daba taagan buu qof foox la huuraay haddaa aragto ya inta loo geliyo saas dhahaya oo la huuriyahay haddaa aragtana suufi baa daba taagan buu yiri haye bal aan aragne suufi wax ka sheega ma karnay laakiin gabayga asaas yar unuga wax kama sheegin yaa haddaba ogaada marqaati ka ahaada inuu si kale u sheegay ha gabayga yiri anaga ma qabyaalada aan la jeclaysanna ingiriis baa daba taagan tan sax miyaa tan unuga joogna ingiriiska daba taag ha asaga waa joogaa derbi joogaa qabyaalada aan la jeclaysan ingiriis baa daba taagan buu yiri qabyaalada si kala waay dadkan la qabyaalada macnaha oo qabyaalad ay kuma dhaqmaane magaalo isugu heliyaan ya soo maaha wuxuu yiri isxambaarkaad aragteena buufis baa daba taagan ya sheekooyin qosol loo kalena waan hayaa buu yiri ma raaciyaa sheekada yartaa way yartahay wuxuu yiri nin reer baadiye ah wuxuu yiri nin reer baadiye ayaa qoyskiisii ku yiri waxaan soo booqanayaa walaalkay oo degan magaalada walaalkii buu u yimid walaalkuna xaas buu leeyahay walaalkii markuu u yimid buu xaaskiisii wuxuu ku yiri xabiibi waxaa noo keen xabiibi walaalkay waxaa u samee xabiibi salaga xagga noo dhig xabiibidii oo isaga maqlo haya mabtaa miskiinka reer miyiga ahay hadhow inta baxo safarkiisa iska dhamaysto soo fiican oo guriga walaalkii ka yimid ayuu inta baxo wuxuu aaday maxay baadiyaha uu noqday markaas waxa la yiri hebel oo waran heelan walaalkay gurigiisa ka war asawir Allahu akbar oo yiri wuxuu yiri walaalkay buu yiri yaa حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام بو أفكك هيا بو ما شاء الله حبيبي ذا قبضة أو دهايو أو وقبا إنه حبيبة النبي إنه لا هو ملايا سور كاسوا بروا قيسنا ينو رواية ولا الكي حبيبك أبا أفكك قادم من بير النبي عليه الصلاة والسلام كان سلامتي سو حبيبي لها سو حتى سو حبيبي لها لكن متكسي غير بدن بوش غير الله سي هذه أنا شيكة مركل أنا سوقات شيكة حكت أميني طبعا وشيكوين هي قوية جعفر كاد حسب بدن عاو شيكة أنا وحي نوصل ديري أحمد ميدو ساس وصو قري oo jooga Soomaaliya طبعا sheekadan waxay ka timid magaalada marka caday ayaa ku qoran halkan Axmed wuxuu leeyahay hadda ka hor ayaa waxa magaalada marka caday ka jiray iskuul maalmaha kamida ayaa macallinkii iskuulka ardayda u sheegay inay keenaan hal mahmaayo maalinta xigta markana waa iskuulkuna markuu ku yaala marka dabcan koonfurtaynu joognaa ardaydii baa la weydiiyay inay hal mahmaah keenaan maalinta xigta arday walba waxa laga rabaa inuu mahmaayo keeno markii banaanka loo baxay ayaa ardaydii isweydiiyeen waxa berri qof kasta uu la soo xaadiri doono oo galaaska uu keeni doono ardaydii mid kasta maalintaas oo dhan waa magaalada la wareegay nin walba inuu wax keeno mid kamida ayaa waxba waa keeni waayo waa uu garan waayo markaasuu isku dayay inuu bal xaafadii tago oo hooyadii iyo aabihii wax weydiiyo guriga markuu tago ayuu hooyadii la kulmay iyadoo wax karinaysa mashquul ahayd waxay tiri war aabaha weydii markaabuu baxay oo aabihii intuu orod isku xaabiyey aabihii meel kale ku jira qol kale u tagay wuxuu u tagay aabihii muraayad taaganoo garabaati xiranaya macnaha tay baa loola jeedaa garabaati markaasuu ku yiri aabe hal mahbahba layga rabaa iskuulka Britol aabihii garabaatigu xiranayay buu isla markiiba wiilku u jawaabay hal mahmah miya ha anaa ku sheegay buu yiri hasho le miya ha yiri wuxuu yiri anaa ku sheegay iga dhageys wiilkiisu la hadlay mogta odagii geel garabaati ma xirto lacalla hadii xirtana ma ku qurxoona ma ku qurxoona odagii garabaati uu ka alifay baabaayay geel garabaati ma xirto lacalla hadii xirtana ma ku qurxoona qortiisa halkii macmaasaas ay ku baxday aniga aan tababsiis ku sheegay en waa hal xiraalihii toddobaadkan si aan fursad ugu helo mar kale inaan kugu soo celinto barnaamij ku jiro daawada si fiican u dhageyso su'aash hal xiraalaha toddobaadkan hal xabal le marka la weydiinaa hadalku meequu u kala baxaa haddaan sii jilciyo waxa weeye wixii af laga yiraahdo oo dhan af Soomaali ahaan meeqaanu u qaybinaa oo aanu ku sheegnaa inay kala yihiin hadalku meequu u kala baxaa waa mahadsantiin hadalku meequu u kala baxaa wixii af laga yiraahdo oo dhan tira badan yahay meeqay u kala baxaan waa xisaab badarku jirtan walaal حسابه طبعا أنا وعمل هذا تقول حساب بدر عندي دولار مركا حساب ما أنا هذا كون أنتوا أكل بح مركا أنا كسومالي نهاي هذا كنت أكل قيبنا تذكرنا في سومالي كل هذا لا وأنو أنت
haye waa tahay waxaan jecelnahay inaan soo qabanno markaan aan ka yara nasanna xaggii warqadaha iyo iimaylada aan noo soo dirteen dabcan weli waa barnaamijkii nala fiidso oo si toos ah aad ka daawanaysaan Universal TV sheekooyinku way fara badan yihiin haddaan u laabto dhinaca kale waxaan soo qaadanayaa markaan heestaa waxaa ku luqeynaysa Khadra Daahir waxaa la yiraahdaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo hee dhamaystirahe idinka lawa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo anoon wali ku gadbixin dadheer bay saaran tahay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo anoon wali ku gadbixin gadheer bay saaran tahay goddhabayo angawraciyo angorino xaalkan tagay goddhabayo angawraciyo angorino xaalkan tagay gartanaan kala lahay ayaan gogol kula hurda gartanaan kala lahay ayaan gogol kula hurda gantaashana wan qabo martina guulaan wahay martina guulaan wahay gantaashana wan qabo martina guulaan wahay martina guulaan wahay qofko ay iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado gadaaluma soo noqdee go'aankii hore u daayo ayaa mahan gaabiska qofko ay iyo midkoodna hadduu galbado gadaaluma soo noqdee go'aankii hore u daayo ayaa mahan gaabiska horaadkan godolaha haddayga gagaxsheen horaadkan godolaha haddayga
iyana waxaan kaga gudbaa gobayliicoo jabin iyana waxaan kaga gudbaa gobayliicoo jabin dantaashana wan qabaa martina guulaan wahay martina guulaan wahay cajiib hees qurux badan oo dabcan miisigii wada dhammaa uu daba yaallo waxa weeyaan cudurka gala fardaha haddii laga guba dameer dabcan waxay la mid tahay haddii waxa dawada soomaalida qaarkeed haystee dawada haddii meel qalada cudurku laga ku dhac daro meel kale laga gube dawada haddii meel qalada laga waaba daro kuwa degi weydaya aad iyo aad haye waa tahay waxaan weli aanu jecelnahay inaan u laabano markaana waa barnaamijkii nala fiidso sida caadada ahaydba aynu kusoo qaadan jirnay sheekooyinka ay dadku noo soo diraan gabayada iyo waxyaabaha murtida ee iyaku qaarkood ay alifeen oo fikirkooda ama maskaxdooda ka timid iyo sheekooyinkii soomaalida ahaaba waxaan jeclahay inaan mar kale idin xasuusiyo waxaad barnaamijkan kala soo xiriiri kartaan oo iimailada aan noogu soo diri kartaan emailkii aan horey u sheegnay oo ahaa oo lasoo gaabiyey nala fiidso oo lasoo gaabiyey oo nala laga soo qaaday na iyo fiidso oo fa laga soo qaaday marka na iyo fa at tvuniversal.net ayaa emailkaas nagu soo diri kartaan na fa at tvuniversal.net sidoo kale haddii aad video ama film noo soo dirayso oo muuqaal ah waxaad kusoo diri kartaa qeyb cusub oo la sameeyo oo si fudud aad ugu soo diri karto qeybtan waxa weeyaan www waa xagga internetka www.tvuniversal.tv/forward up waxa weeyaan www.tvuniversal.tv/forward up anna aan ogeysiiska la raaciyo ee bogga Facebook uu ku leeyahay nala fiidso waxaa la yidhaahdaa www.facebook.com/xariijin nala fiidso isku dhegan laakiin waxaa naga xusuusa daawadayaal oon idinkula talinaynaa inaadan boggaas su-aala uga soo jawaabin sababtu waxay tahay qof kalaa kaa eeganaya oo arkaya deetana isagii oon waxba su-aashii isku hawlin waxaa laga yaabaa jawaabtaadun inuu koobiyeeyo oo walaan wax qarsoodiya maaha bogga dadkao dhan qof alla qofkii boggaasi ka mid noqoto oo iska rajiis garaysa ayaa arkaysa jawaabta marka jawaabaha boggaas lagu soo diro daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaadan boggaas jawaab kusoo dirina oo aad emailka laydin siiyo oo qura jawaabta kusoo dirtaan jawaabtu waa inay noqotaa mid qarsoodiya hadda ka horna markaan barnaamijkan bilaabayno waanu isu sheegnay xitaa adiga iska dhaafa saaxiibka ah u sheegay jawaabtaad noo soo qorayso sababtu waxay tahay xilligii la bilaabay nala fiidso markay sanad ka soo wareegto waxaa jiri doona dadkii ugu wanaagsanaa amaba sida wacan uga qayb qaatay in la siin doono abaalmarino saas darteed hadday wixii farabataan dhibaatay noqonaysaa qof aan ka jawaabin hadduu abaalmarintii kugula tartamo oo adiga uun jawaabtaadii guursaday waa dhibaato marka waxaad samaysaa jawaabta ha kusoo diran laakiin faalladii kalood ka bixinayso barnaamijkii aad daawatay sidaad u aragtay wixii kaloo talad noo soo jeedinayso haddaad rabto su-aal inaad qabto oo aad rabto inaadna su-aasho halkaad barnaamij kala soo xiriirayso iyo waxyaabahaas waa tahay dabcan waa wax muhiima intaasoo dhan aan ku laabto markaana xaggii warqadaha saaxiibada noo soo diray sheekooyinka cajiibka leh sheekada soo socota waxa inoo soo diray maxamed mido oo mar hore sheeko hore noo soo diray isagana labadaa sheeko ayuu israacsanaya sheekadani waxa uu leeyahay waxaa dabcan ay u eg tahay inay ku saabsan tahay xagga masiirka ragga iyo dumarka maalin ayaa waxaa dhacday nin iyo xaaskii ayaa isku qayliyey ninka gabadha qabay ayaa habeenkii guriga kasoo habsaamay markii uu albaabka ay ka furtay haweenaydiisii ayaa waxay ku tiri meeshaad ka timid ku laabo aniga gurigayga caawa soo geli maysida albaabkay ka xiratay isaga oo yaaban ayuu waxa uu yidhi xageen ka imid baad u malaynaysaa waxay ku tiri naagaha maantoo dhan aad caawoo dhan la joogtay dumarka maskaxdooda dhanba tu kale unbay ku juustaaraysan tahay moogta wax kale maba qiyaasaane markaas ayay anaa dumaraho kuu oga taas saas maano bis xawalay hadduu maqan yahay wax kaleba ma ku rajis garaysan taasaa lagu rajis gareey haddii oo wax kale la imaahayno inaan bedelnaa u baahannahay moogta oo juustaarayno sida raadiyaha maaragtay markii la raadinayo hadduu soo doono kaftan la iga tahay yaa raalli ahaadayo
markaa ninkii way ceyrisaba oo waxay tiri albaabkayga soo galmays gurigaygana iga bax baxay tiri ninkii ayaa habeenkii iska baxay haye wuu iska tagay wuu fikiray subaxii ayuu waxa uu tagay nin sheekha oo xaafadda deganaa sheekha ayuu arrinta u sheegay oo waxa uu ku yiri sheekhow xalay naagtaydii ayaa ceyrisay maxaan sameeyaa ilaa wuxuu isleeyahay waa wadaada u siray bal waanada dhinaca diinta ha kuugu nasteexeeyo isdhahay haye sheekhu wuxuu ku yiri masaasay samaysaa iska fur buu ku yiri iyada dhanba masaasuu yiri cajiib haye markii uu sheekha boodin haye noo dhamay markii uu sheekhu ninka ku lahaa fur waxaa maqlaysay naagta sheekhu uu qabay oo guriga ku jirta markaas haye wax yar kadib ayay xagga ka wareegto markii ninkii uu baxay ninkii la yiri naagtiisa fur ayay ka daba tagtay ninka ayay u wacdo waxay ku tiri war sheekha been ayuu ku sheegayay naagtaada ha furin iska furanay dawla haye kaasuu yiri maxaan ku cadeyn karaa inuu sheekhu been sheegay ninkii yaa sidaa lama ogta haye naagtii sheekha ayaa waxay tiri adiga mid ii samee soo gal guriga oo sariirta hoosteeda gal sheekha sariirtiisa iyo hoostiisa la gal rabo marka arag waxaan sameeyo waxbaad indhaha ku arki doontaa bay tiri haye ninkii sariirta ayuu hoos galay kadib waxaa yimid sheekii naagtiisa oo albaabka soo garaacay isagoo wax sariir ku hoos jiro ma oga asaga marka ilaa ninkii kale sariirta hoos ku jiraay islaantii wadaadka markuu albaabka soo garaacay tiri ay ka furtay tiri xageed ku maqneed caawa dhan markaasuu yiri meelahan baa soo wareeg maya meelaha soo wareegaysa maana gurigayga iga soo galin asaga ma la yiri sheekh laftirkiisa markiisa la ceerinay markaasuu yiri maxay idin ceerinaysaa haye naagtaad caawa dhan la joogtay هذا لا يرى هيا شيخ العرينا موقت هيا كي كان صورته سو كجرا مقلا واتاي كشفات الفضيح هيا شيخي با قيليه oo yar walaa lama joogin anigu naagin ma arkin meelna ma jirin dhaar afka isjeex dhaarta sida nin markay naagtiisa qabsato u dhaar jiro dhaarta dhulku isdhig haya islaantii baa waxay tiri masaasaha hadda run sheegayso dhulka isdhig dushan ka fuulaya markaan dusha kaa fuulo kor ii qaad deetana sida ariga u dhawaaq macda haddaad run sheegaysa tira intaasaan ku qancaabayta nin walba naagtiisa hebada u yaa maske islaantii odaygii sheekii bay dusha ka fuushay sidii sheekii wuxuu iska dhigay sidii wax macle sidii baa sheekii la yiri hoykay marka waan kaa yeelay guriga soo gal sidii uu sheekii guriga ka soo galay wadaadkii kii kalena sariirta hoosteeda ku jira arrintii buu dhageysanay islaantii baa waxay tiri sheekow maanta dhan dushan kaa saarnay wadiga dhidaday xogaa yara biyo isku soo buubiyo soo nafisay tiri soo qabayso biyo isku soo shusho biyihii intuu ku maqnaayo biyaha isku soo qaboojinaya kii tiri sariirta ka soo bax ma arkaysaa bay tiri wadaadkii markaasay tiri haye aday ku taala haddaan naagtaada furi leedahay haddii kale ninkii naagta fur lagu yiri iyo wadaadkii ayaa maalinta dambe suuqa isku arkay haye markaas wadaadkii yiri haye marka was xariifa suuqa markuu joogo waa wadaad ilaa wadaadkii baa wuxuu yiri ninkii ku yiri sheekhi waxa waay oo beesha haye sheekhi baa meesha dhaw meesha degan sheekhi haye xayir sheekhi wuxuu yiri ninkii la hadlay moogta war naagtii ma furto yiri ma soo aga guriga ku joogtaa ninkii wuxuu yiri maya maan furin nin walba gurigiisa bacaa ku jooga nin walba gurigiisa bacaa ku jooga oo dha illa sheekada soo xasuusanaya moogta marka waa in la bacaa buu leeyahay waa kii saarka sheekheena tiisan korka ka fuusha bacaa dheh inta tira dhahay moogta marka guriga waxa lagu joogaa farsamooyin sidaas ula jeedaa umaleeyahay laga masal gaaro laakiin naagtaas reer bay badbaadisay laakiin sheekha maskiinka aan kan dhahay haye aniga aan intan nin la yiraahdo cabdikariin maxamed ciise oo gaalkacyo jooga oo daawadayaasheena ka mid ah wuxuu yiri horta barnaamijkan aad buu noo raali galiyay buu yiri bal dhageysa reer gaalkacyo haddaanu nahay wuxuu yiri laakiin annagu magacii baa ka bedelno waxa u bixina buu yiri nala dhafar ilaa waqti dambe uu soo galaahe hadda waa tan saacadii BST di GMT isu bedesha halkan ma ogtahay waa halkan Yurub meesha aan joogno waa meel cajiib ah 20 sano haddaad joogto la qabsamaysid saacadaas bedelaysay saacadaas bedelaysay hadba saacad baa dib loo dhigay marna saacad baa hore loo soo dhigay marka hadda dib aan u dhacno inta kale dib u sii dhacdan taas ugu wacan marka wuxuu wax buu soo raacay wuxuu nin baa wuxuu arkay inuu koox yar oo dhalinyaro raashid cunaysa asagoon cidna la hadleen oo inta iska fariistay oo dhankiisa raashinka ka cunay gacanta la gala hadda waa dhalinyaro inta yaabana isfirfirshana ma adka ma taqaan ma yaqaan marka wax yaqaan la waay waxa la yiri ninka ma qof had garanaysan nagu jira la yiri ما يوري وما جرى لكن ترى اسنا قناه انت انت فرتك فيها
tanaa iska saynaa yiri aniga iyadana aragtiyana ka dhaxaysa waa mahadsan tahay daawada Cabdikariin Maxamed Ciise oo gaalkacyo ka soo qoray إن شاء الله وأنا كتشن دون أنا جاي معمول كتلفزيون نلا دفر إنه ولا نقرن أسكت ضينا وكنت دالينا لا أسكت ضينا وقتي على صور مي وفعنا له مش ما دام ونلف سياه إن وقتي هو ركنا نقض حاجة شاكر وقت بس سوق أنا عليه أمين أي شاكر أنا وحكوا صار صنده إسلا شاكر دي وكلاء ومصير أي أنا كل تو ده مصير كدوم مركب ما أنت أنا هي وإنه سوق قرطي سمية عبدي وجوكت نيروبي وأنا سلامي بالله ده أمين أي سعوته وعني ده هيا بتري شاكر قصر بدن ويا شاكر أنا وحلا ده nin reer baadiya ayaa wuxuu lahaa laba xaas mid ayuu waqti dheer qabay waxna uma dhalin mid kale ayuu haddana guursaday mid oo waqti dheer qabay mid kale oo gadaal ka guursaday tii dambe ayaa cunug dhashay maalin maalmaha ka mid ah tii dambe umushay labadii naagood tii hore waxbay dhalweys mid kale uu guursaday tii dambe uu guursaday ayaa cunug dhashay maalin maalmaha ka mid ah ayuu yimid tii hore oo aan waxba dhalin asagoo aad u qoslaayay oo ka yimid tii cunuga dhashay markaasay tii aan waxba dhalin ku tiri maalin kasta markaad gurigaas ka timaado hal qoslay ayaad timaadaa maxaa ku qosashaa markaasuu ugu jawaabay waxaan ku qoslaa waxaan ilka lahayn ayaan ku qoslaa ku qoslaa meemas ayaa ii qoslaa sheekaasna si kale u maqay okay haye waxaan ku leeyahay haye dhib male haye qofba sheeko si wariyay waxaan ilka lahayn ku qoslaa tii aan wax dhalin markay maqashay waxaan ku qoslaa waxaan ilka lahayn ayay ilkihii dhan iska jijibisay kala ay qaadatay ilkihii iska rushays ilkihii iska soo oo u timid odaygeedii oo ku tiri haye ka waran meeshaas wixii ka dhacday inaan u jeedo malaya markuu yiri waxaan ilka lahayn ku qoslaa ilkii kal inta qaat iska jajabisay asagii ku soo laabay asagii waxay tiri ay u qosasho marka asaga wala ma dhina marka wax isleedahay malaha baraas ka farxiyo isleedahay ku qoslaya cunug yaro sabiyo ilkii wali soo dhalanay maana qof weyn oo afka ka jajabaya day kara odaygii halkaana ka fudaqsamay odaygii oo naxdin kaga cadahay ayaa orod albaabka kaga baxay iga tago islaantu waxay tiri mooysan fahminay odaygu wuxuu la jeeday cunugii yaraa ee markaa dhashay aan ilkaha lahayn ee islaantii kale ay dhashay tii kale ma dhexaysa ayuu la jeeday gabadha sheekada sidoo soo qortay iyadoo waa ku ilka beesha halkaas inta ninka isu dhismaagas oo ka qosli waa tahay hal xiraalaha toddobaadkan barnaamijka gabagabuu maraya daawadayaal intaana barnaamijka soo gabagabayn aan ku xirayno waxa weeye mar kale aan ku celiyo hal xiraalaha toddobaadkan aan idin dirayo waxa weeye hadalku sidiisaba daawada meequu u qaybsamaa wixii afka laga yiraahdo oo afka ka soo baxo oo hadalaba meequu u qaybsamaa marka meequu u qaybsamaa lagu leeyahay talyaanigu meequu u qaybiyaa ingiriisku meequu u qaybiyaa carabigu meequu u qaybiyaa ma aha waa Soomaaliga meequu u qaybsamaa maxaanu dhahnaa waa u qaybsamaa hadalka meequu u qaybsamaa intaas u qaybsamaa waxa bayna kala yihiin baan ka idinka doonina iyo waxa haday badan yihiin haday yar yihiinba waa mahadsantiin haye soo gabagabeynayna barnaamijka dabcan waa barnaamijkii gabagabadiisii ayaanu joognaa waxa aad weli daawanaysaan barnaamijkii nala fiidso waxaana idin daadahinaya anigoo Cabdirasaaq Socoto iyo Aamina Muuse xagga farsamadana waa Cabdiqani Ba iyo Cabdalle iyo Axmed lawaantoodna waxay idin leeyihiin waa maasantiin intana daawanaysa emailka waa isu sheegna Facebook waa isu sheegna ballanteena waa sidaas tan intaanu mar dambe ma aragtay dib dambe u kulmi doono idinka leewaaya nabaday